injineer faysal cali waraabe musharaxa madaxweynaha xisbiga cadaaladda ee daryeel kowcid oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay halkan waa hoyga uu ka degay gudaha Hargeysa ayaa markii ugu horeysay la hadlay warbaahinta tan iyo intii ka dambeysay 13 bisha November markii shacbiga Soomaaliland u dareereen goobaha codbixinta doorashada waxaanu si adag uga hadlay dhacdooyin intii doorashada ka dambeysay dhacay isla markaana dad ku dhinteen isagoona tilmaamay inay tahay nasiib daro in Soomaaliland dad kaga dhintaan doorashooyinka marka waxaan taanideen wada shacabka Soomaaliland sida quruxda badneed ee nabadgelyada lahayd ay u footeeyeen oo codeeyeen waxaan taanay ciidamada nabadgelyada iyo kuwa militariga waxaan leenahay natiijadu way soo dhowdahay kursiga qof uu fadhiisan lahaa nina laguma talagelin inuu keligii helo dadka rabshada laga daayan leena masaakiinta 22 maalmood aan ku dul warwareegnay campaign ku xun ku wadnay aan shaqaysan aan iskuul tagin rabshad kale oo baahnaan Soomaaliland waxaan leenahay dawladda maanta joogta ee bisha harsantayna waa inuu sharci u shaqeeyo sharci inuu shaqeeyo rayga ka soo bixaya erigaaban waxaan leenahay Soomaaliland waxa yeeli kartaa Soomaaliland ka u baahan idaga qaran u baahan إذا كان دكتاتي شقينين ودادين دمانين طيارين إيمان ما أنت عد وبان قرن وقبان إرقاوة ما جرت سمعنا عندنا كبر برميس سيداس سناق لان إياه ودين لأننا مصر ما يسميان إذا كان حمانتا كياني قبيلك كياني كحتيا كياني منصر باسكو أبورتين دي أتكيستا إذا كان شيئا سميه ودتكي إن نشرنه أو متشرته أو حقه اللي دوتسي عندنا سبحانه وتعالى نول أو أفريقيا كم مقطع كسر مرتلي أيضا نقول المامي واحد شرا مومنتم في عم بشرة أو أي مانتا ضميرك international community وقام بالشدة عالمكو أي آدي ودرينسيهين إن الدم اللي نجا قالي ونجعلنا إن شاء الله تعالى دورشين كبعدنا إن ينوم إلى دالي دونتو وينقون دونتو لأنه قيمة دل كان تدوي الله تنسى حرها تو أدوك ولنا وحبس يعني بو عندنا resilient إنه ضد أتكيس نقني دمراديات كم عن نقطي دورشين كعن نقطي أفريقيا oo qaarkood 5 cod lagu kala helay waxyaalaha aynu soo saaray ka mid tahay waxa ka mid tahay labada xusbi oo laga cod batay baarlamaankii in haddana shir gudoonka shir speaker-kii qaateen speaker gudoomiyaha jiray maaha waxa shir gudooniya ciraha soo saaray gudoomiyihii baarlamaanka aanu qaadanay waa waxyaalaha aan dhici jirin nabadgelyo inuu dhaceen haddana adduunku ay moodida inay naga jeesadeen oo dadana gaarka ay naga raaceen oo wadan aan jirin Soomaaliya ilaa qabaa'ila dagaal ka socdaan oo 22 kun oo ciidamo joogaan ay iska ixtiraafeen kursigii Soomaaliya ee UN-ta aynu geysanay dhinaca qura la siiyay oo inuu tamar aynu ku ashkatoono waxaan u soo riyaan weynay inagoo isku habsanay waxaan doonay doorashada inay laga baxo saasan dooninay doorasho lagu tartamo platforms issues mustaqbal ixtiraaf ayaan heen inagoo wanaagsan oo dadku kala foofay oo xaasaska family kala yihiin kala cod ayaa la inoo keenay waxa la garxajisay hodelkaas lagu shaqeeyo ma aqaanay meel halkaas oo la ilaa waxa la ilaa Marud Jeex ragii 94 kii dagaalka dhaliyay halka yimi garxajiyadii 94 kii dagaalka bas ay noo soo celiyeen halkaas horta baash ku qalacatay taas waxay abuurtay in qabiil loo footiyo jeegana samaysato la ficiltamo codkana wuxuu ku baxay qabiil buu ku baxay ishiisu ma bixin reeraal isku sheegay هذا reeruhu ficiltamaan
oo codka lagu ficiltamo dee waa la kala badayo reer baa badinaya marka in reer baa badiya laga xanaaqa dee maaha cadowga somalilan dad uu ku tilmaamay ayuu musharaxu si adag ugu diray isaguna sheegay in haba yaraateen ay somalilan ku burburayn doorashadan islamarkaana jiritaankeedu noqon doono mid sii waara da waxaan ii sheegayaa yaa ragga ka yimi qurbajooga reer qurbajooga ka yimi ee doonaya inay inta caruur dibadda soo dhigteen inay somaliland masaakiinta dadka reer somaliland inay qasgeliyaan haloo dayaarad ka raacaan suurto geli maysaan leenahay waxaan leenahay shacbiga reer somaliland ee soo dadaalay ee maanta ka soo kabtay dagaalkii sokeeye ee 1994 dadka soo celiya wixii waxaanu sheegaynaa inaan maanta somaliland dagaal ka dhicin xumaanta iyagu ay dusha ka saaran tahay ay ku cildaysan doonaan waxaa jirta rag baa intay soo taageen tv-ga bareska yidhaaheen waxaa la soo qortay buwaag beenbeena oo lagu footayey bay yidhaaheen forgery baa lasoo sameeyey yidhaaheen waxay ahayd markay ka baxeen miidiyaha in lasoo qabtay ahayd hadday yihiin forgeryna la keeno ciddii keentay forgeryga soo samaysay buwaagta codbixinta soo samaysay haddaa nek laga qaatay commissionkana la ogaada cidda bixisay intay saa yidhaaheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacya dadka mudaharada dhigay dad baa ku dhintay ilaa maantana dibadday joogaan waxaana arrinta ogaatay inuu ahaa buug soo hadhay oo buugkii codbixiyaasha ka soo hadhay oo gobolka saaxil ahaa weliba deegaanka taageera ciro ahaa injineer faysal cali waraabe dhammaal tacsiya u diray ehelkii qaraabada iyo sidoo kale shacbiga somalilan dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay shaqaaqooyinkii ka dhacay qaybo ka mida magaalooyinka somalilan intii xilligan ay socotay tirinta codadka doorashada isaguna xisbiga mucaaradka wadani ku eedeeyay in isagu qayb ka yahay kicinta dadweynahaasi dadkii dhaawacmana ilaahay subxana wataala aqsaa u bogsadeen dowladda waxaan leenahay dadka hadar yeesho dadkii dhintana waxaan samariya iimaan qofkii dhintayba dadkii abuuray fidmada abuuray fidma huruda dadkii kiciyey ayay dusha ka saaran tahay samariya iimaan gedigana ilaahay naga siiyo tirinta codadka 13 bisha November shacbiga Somaliland u dareeran goobaha codbixinta doorashada ayuu tilmaamay in musharaxu ilaa hadda si qurxoon u socotay isla markaana uu ku kalsoon yahay natiijada soo baxda maalmaha foodeen ugu soo haya Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.